sagaal iyo 20 Sebtembar 2005 waxay ahayd maalin laga dabaaldegayo Soomaaliland. dadweynaha Soomaaliland waxay u dareerayeen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan markii ugu horeysay muddo 35 sanadood ka badan gole wakiilo cusub. doorashadan waxay ahayd doorashadii saddexaad uguna dambeysay doorashooyin taxana ah oo ugu horeeyeen doorashooyinkii golayaasha deegaanka la qabtay Disembar 2002 waxaana ku xigay tii madaxtooyada oo la qabtay Abriil 2003. maantana waxa loo codeynayaa golihii wakiilada laakiin qabashooyinka doorashooyinkaasi ma ahayn mid sahlan waxayna ahayd qabashadoodu mid laga maarmaan ah. tartantay ee fursadda u heshay inay golaha deegaanka ku tartanto axsaabtii fursadda u heshay inay tartankii madaxtooyada galaan ayaa waxa ka dhinaa oo aan suuragal ahayn oo codkoodii ka maqnaa golihii ugu weynaa ee siyaasadda iyo sharciga dalka dejinayay. sidaa daraadeed bay qasab u ahayd oo aynu ku qasbanayn oo ay muhiim ahayd wax eeba qadari waaye mooyaane inta karaankeenna inay doorashadaasi qabsoonto. haddii qabsoomi weydo sinaanta iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka Soomaaliland wax badan ayaa ka dhinaan lahaa. dadweynaha Soomaaliland waxay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay in ay dhamaystiraan geedi socodka dimuqraadiyadda. dadweynaha ayaa doonaya waxaan inay si wanaagsan u dhacaan kuwaasaana gacanta siyo guusha labaad la sii dhaliyay. waxaanu leenahay dimuqraadiyad baynu gaadhnay dimuqraadiyad maynaan gaadhin qabiil baynu dib u noqon. doorashada maanta dalka ka dhacdayna tii 60kii ayuunba u eegtay waayo nin halkaa ku soo baxay barnaamij uu sitay oo wax qaban muu jirin ee waxaynu ku soo baxaynay yaa reer Hibeland kaleeyadana meesha ku jirtay muhiimka ah ee runtii fahamkeeda u baahan ayaa idin waxay ahayd doorashooyinka bilow ay nagu ahaayeen dhowr iyo 30 sanadood baan inuu doorasho gelin. marka haddii aynu isnidhaahdo matalan doorashada Mareykanka ama Yurub oo kale maalin hore ku gaadha iyadana dhinteeda leedahay talaftarkeeduna waxaan u arkaa inta laabo loo qaado. martigelinta kulliba aad ugu mahadsantahay akademiyadu ay martigelinaysay mar walba ilaa waqtiga hore ee dawladda hoose ilaa tii madaxweynahana akademiyadu mar walba magacay doontaa yeelatay waxay ahayd tii martida loo ahaa ee lagu shirayay gurigeeda inta badanna martigelinta bixinaysay. waxa la inaga baranaya oo islaahay dadkii aynu hoosta ka xariiqayna marba waxa weeye hawshan inay hirgasheen haddii aan wax dib u heshiisiin oo maalin walba joogta oo axsaab la isu keenayo oo dawlad la isu keenayo la heshiisiinayo hawshaas awood waana tal la inaga baran karaa baan ugu aaminsan. akademigu isagoo la kaashanaya WSP International wuxuu qayb libaax leh ka qaatay qabashada iyo hirgelinta doorashada golaha wakiilada. akademigu kaalintii uu ka galay tii madaxtooyada waxay ahayd February bilaabmeen wada hadalladu waxay dhamaadeen November oo arbaca kasta la isu imanayay oo laga wada hadlayay su'aasha axsaabta loo dhigay markii hore ururada loo dhigay 8 urur ayaa loo dhigay oo ay ahayd doorasho xora oo xalaal istay ku qabsoomi kartaa 12 qodob ay la soo baxeen 12 ka hadii la fuliyo inay doorasho xaq oo xalaal ay dhacayso. markii ka dambeysay ee tii baarlamaanka la galayay markii xeerkii doorashada loo ogolaaday inkastoo caraaqilkiisa caqabadihiisa lahaa laakiin tii laga soo gudbay akademigu wuxuu qaban qaabiyay in xad kasta iyo salaaso kasta muddo 3 bilood lagu kulmo akademiga xeerkii anshax marinta ayaa isaguna meesha ku hirgalay. filimkani wuxuu soo bandhigayaa sidii doorashadu u qabsoontay caqabadihii ugu waaweynaa ee la soo maray iyo sidii halka looga sii anbaqaadi lahaa. waa November 2004 bartamaheedii. afar bilood ayaa ka harsan xilligii doorashada. wax dhaqdhaqaaq ah oo ku saabsanaa dhinaca doorashada haba yaraatee ma ay jiraan. si loo soo nooleeyo dhaqdhaqaaqii doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada qaybe wuxuu ka codsaday akademiga khabiir ka caawiya samaynta xeerka doorashada golaha wakiilada
Robin Samoro oo u dhashay dalka El Salvador ayaa yimi Hargeysa November 2004 ninka khabiirka ah iyo guddi uu magacaabay gudoomiyaha golaha wakiiladu ayaa bilaabay samaynta xeerkii doorashada golaha wakiilada 27 December 2004 xeerkii doorashada ee la soo diyaariyay waxa loo qaybiyay xildhibaanada golaha wakiilada doodii xeerka ayaa bilaabantay xeerkii ama sharcigii waxa ka soo horjeestay mudanayaal fara badan markii xal loo wada dhan yahay loo waayay arrintii saami qaybsiga kuraasida bishii January 2005 golaha wakiiladu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyay xeer doorasho oo ay ku jiraan qodobo xayiraya qabsoomida doorashada xilligii loogu talagalay golaha wakiilada waxay shuruud ka dhigeen doorashada arrimahan samaynta tirakoob rasmi ah oo lagu qaybiyo saamiga kuraasida inay doorashadu ka wada dhacdo wadanka oo dhan oo ay ku jiraan gobolada Sool iyo Sanaag waxayna intaa raaciyeen in arrimaha la'aantood doorasho la qabta ay tahay khiyaamo qaran dadweynaha reer Somaliland oo doorashada baarlamaanka aad iyo aad u daneynayay ayay arrintani aad iyo aad uga cadhaysiisay waxaanay si kulul u cambaareeyeen oo aan kala go' lahayn mudanayaasha golaha wakiilada akaademigu wuxuu qabanqaabiyay dood ku saabsan ansixinta xeerkan muranka dhaliyay doodaasay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan wasiiro mudanayaasha baarlamaanka komishanka qaranka saxaafadda iyo ururada rayidka ah doodii sidii la filayay waxay noqotay mid xiiso leh oo aad iyo aad la isugu weerarayo dadkii halka ka hadlayay dhammaantood waxay weerarayeen oo hadallo kulul u jeedinayeen mudanayaasha golaha wakiilada waxayna ku lahaayeen waqtigiinii wuu dhammaaday waxaan doorasho ahayn laydinka aqbali maayo labadii jeer hore aynu galay doorashooyinkana walabiyo billaha ay sheegayaan odayaasha meesha fadhiyay way ku jireen oo ay marsanaayeen markaaba waana inoo qabsoomeen marka de maanta inaan niraahno tanama qabsoomiso kul aniga rayigayga ilama doorashada wakiiladu maxay kaga duwan yihiin labadii doorashee hore anigu waxaan qabaa inay maanta arrinku yahay in golaha wakiilada loo keenay contractkii ama heshiiskii ahaa erigooda nimaynaanu erigiisa saxeexayn waxay noqotay in mudanayaashu istifaacaan oo ay ku doodaan go'aanka ay gaadheen inuu ahaa xalka ugu wanaagsanaa oo ay gaari karayeen marka loo eego xaaladda jirtay sida hore u maqasheen muddada 2 sanadooda waxaan isku haysanay waxay ahayd saami qaybsiga anagu markii dabeetana nin waliba ay reerkiisii maxay ahaydeen ay daba fadhiisteen mas'uul kasta oo xukuumadda ugu jiraan uu xubintii daba fadhiistay salaadiintii daba fadhiisteen aanu kala weynay inaan maxay ahaydee aanu ku midowno waxay noqotay inuu kano aanu noqdo ka keliya aanu cadaaladda ku sugayno reerna aanu xubintiisa qabsanayn maadaama mudanayaasha intooda badan la aaminsan yahay inay yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya udub waxay dadka qaarkii u qaateen in go'aanka golaha wakiiladu gaadheen ay dawladdu kula jirto oo ay raalli ka tahay taasi waxay sii xoojisay shakigii ahaa in aanay dawladdu doonayn in la qabto doorashada golaha wakiilada waxaanay sababtay inay dawladdu mowqifkeeda caddayso anigoo dawladda ka wakiila inaan mowqifka dawladda waa la wada socotaan madaxweynuhu waa kii labada gol u sheegay ee yidhi doorashadu waxay dhacaysaa bisha Maars 29 dawlad ahaan way naga go'an tahay doorashadu inay dhacdo afar iyo 6 mudanana u dabraan mayno hadday gacmaha laabtaanna sifo sharciyaan kula dhaqmaynaa kaga baxayna warkeedii ha keento guddidii shuruucdu wixii ayeen February 5-teedii golaha gurtidu wuxuu aqlabiyad ballaaran ku ansixiyay isla xeerkii ay soo ansixiyeen golaha wakiiladu iyagoo baalmaraya rabitaanka dadweynaha Somaliland taasuna waxay adkaysay qabashada doorashadii xilligii loogu talagalay
waxaana abuurmay jawi murugsan iyo jaaha wareer siyaasadeed. golaha guurtidooda iyaga naftoodu sharciyan barlamaankii ah oo u hadhay madaxweynaha oo maqan watay tuuter iyaguna cirka ugu saareen dabadeedna dad alla wixii doorashada iyo dimuqraadiyadda rabay oo dhammi fajcisay ku noqotay arrintaas. walwalkeeda iyo naxdinteeda bay lahayd yeelkadeedee waxaan la yidhi deeyaan walwal iyo naxdintaa keliya arrintu noqonin maxaa la qaban karaa oo xal ah. madaxweyne ku-xigeenkaanu is aragnay run ahaantii shir buu qabtay dabadeedna isagu wuxuuna tusaayey looyaro lala tashaday iyo aaraa'doodii iyo sida arrinta looga dabaalan karo buu madaxweyne ku-xigeenku sharxayey. waxaanu markaa ku daray intiina tana stakeholderskii ah dib isugu noqda tala keena. waa wiigii labaad ee February komishanka qaranka ayaa ku guuleystay inuu 3 xisbi qaran isugu keeno kulamo lagu maareynayo saami qaybsiga kuraasida. doorashada sidoo waxa xuseeyaa cidda tartamaysa iyo cidda dhexdhexaadinaysa. waxaan u arkaynaa anagu arrintaas komishankiina inuu dariiqii ugu saxsanaa u raacay halkii la filayay inay wax xalili kartana uu arrinkii la tegay. markaas si aad iyo aad wanaagsan bay u soo dhigeen anana waan ku qancay runtii xisbi ahaan. kulamadaas oo ay akaademigu martigelinaysay 2 toddobaad ay soconayeen waxay ahaayeen kuwa mararka qaarkood wada hadalladoodu aad iyo aad ay u kululaayeen. runtii anagu xisbiyahan walba waxaanu arkaynay in xal la heli karo laakiin dee xisaabtu waxay kooban yihiin gobollo waxaa interestkii gobollada kala duwanaanaya interestkii xisbiyada kala duwanaanaya interestkii xisbiga laftigiisa gudihiisa sii kala duwanaanaya marka awdaaga taasay ahayd xisbiga laftigiisa marka hore waad moodeen waxba ku soo heshiin baa laga yaabaa marka arrimahaasi waxay arrimaha ugu adkaa saas leeyahay jawi loo karo aad iyo aad u xasaasi u ahayo dareen badan buu lahaayo dadku aad buu u dhigataagayo xisbiyada laftooda way u dhigataagayeen xisbiyada laftooda xisbigu isagoo xisbi waayba haddana gobol ku xisaabtamaya oo xisbigu si guud ashqaastoodu dib u eegi maya gobolada nin waliba gobolkiisa dare gaar u sii eegi marka taa deegaamada daacsabta dhexdoodana ay noqon karnaan way tahay si gobol u meel walba u fikiraysay. qodobkaas muftaaxii doorashada murun ahaantii ahaa dabadeedna bilowgaa la bilaabay looma kala tegin ilaa la soo gabagabeeyey oo shaxdii oo qoran oo gobolaysan oo gobol walba intuu leeyahay ah ka soo bilaabo doorashadii dowladaha hoosena roolka ay ka ciyaartay electoral commissionku ama guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah oo isu soo jiiday xisaabta oo runtii aan ku tilmaami karo inay lafdhabar u ahayd in xisaabtu isku soo dhawaato. waxaa la rajaynayay inuu heshiiskani noqdo kii furdaamiya howlgalkii doorashada. haddaba waxay isweydiintu tahay maxay axsaabta qaranku ugu guuleysteen maareynta saami qaybsiga kuraasida halka golaha wakiilada iyo dowladuba ay ku adkaatay inay xal ka gaadhaan. doorashaday aad uga rabeen golayaasha si aan golayaasha qaar baan rabinba in doorashaba timaado oo rabay inay kursigooda kusii fadhiyaan. axsaabtuse waxay u arkayeen doorashadu inay u tahay doorasho la'aani waa xisbi la'aan. 3 xisbi qaran waxay gaadheen heshiis lagu qeexayo saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada laakiin heshiiskaasi ma noqonayo mid macno ku fadhiya haddii aanu madaxweynuhu aqbalin. madaxweyne Rayaale waxa uu ka soo laabtay safarkii dibadda ugu maqnaa wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo sidii uu furdaamin lahaa doorashada golaha wakiilada ee cakiran. wuxuu markiiba maxkamadda dastuuriga ah u gudbiyey xeerkii doorashada xayirayay ee ay 2 gole ee baarlamaanku ansixiyeen. 26 bishii February maxkamaddu waxay diidafaysay dhammaan qodobadii xayirayay qabashada doorashada. go'aanka maxkamadda waxa soo dhaweeyay dhammaan dadweynaha reer Somaliland iyo axsaabta qaranka.
inkastoo ay mudanayaal ka tirsan labada gole ee baarlamanka ay cambaarayeen go'aanka maxkamadda. madaxweyne Rayaale waxa uu la tashaday xubnaha dawladdiisa, komishanka qaranka iyo dad kale oo fara badan oo ay ku jiraan madaxda akaademiga. la tashiga kadib wuxuu u gudbiyay golaha wakiilada soo jeedin wax ka bedelid iyo kaabid xeerka doorashooyinka golaha wakiilada. arrinta saami qaybsiga kuraasida wuxuu madaxweynuhu qaatay tii ay axsaabta qaranku ay ku heshiiyeen. waxay dhaaftay xilligii doorashada loogu talagalay. taariikhdu waa abriil 2 golaha wakiiladu wuxuu ansixiyay soo jeedinta madaxweynaha. halkaa waxaa ka baxay caqabadii hortaagnayd doorashada golaha wakiilada. doorashadiina waxaa loo cayimay Sebtembar 15-keeda. iyadoo xeerkii doorashada dabrayna meesha ka baxay, waxaa weli jirtay cadaadis soo tarayay sidii loo bilaabi lahaa wada hadashiinta axsaabta siyaasadeed si loo sameeyo anshaxii doorashada loo adeegsan lahaa, isla markaana loogu qaboojin lahaa wixii xiisad siyaasadeed oo dhaawici kara howlgalka doorashada. waxay ahayd xilli jawiga siyaasadeed aad iyo aad u cakiran yahay, xaaladuna meel adag marayso. markan loo diyaar garoobsanaa in code of conduct samayntiisa laga wada hadlo waxa soo gashay arrinka xarunta xisbiga kulmiye. runtii taasina waxay geysay xaraaradii meel aad u sarreeya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa radio horyaal codka shacabka Soomaaliya. idaacad cusub oo faafisa warar aan jeclaysan xukuumaddu ayaa bishii Maarch bilaabantay lagana dhageysanayay internetka iyo raadiyoyada. ciidanka booliiska ayaa xoog ku galay xarunta xisbiga kulmiye iyagoo amar ka haysta wasiirka arrimaha gudaha, iyagoo baadi goobaya qalab idaacadeed oo xukuumaddu u aragtay qayrul sharci. waxa uu ahaa dhacdada kadib kulmiye wuxuu go'aansaday in aanu wax wada hadal ah la yeelan xukuumadda, udub iyo komishanka ilaa inta laga xaal marinayo arrinta ka dhacday xaruntooda. markaa waxaa jira cabsi in aanu kulmiye ka soo qayb galeen wada hadallada axsaabta iyo komishanka. xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye adigu arrintii komishanka waa wada hadalay, waxay noqotay komishanku inuu wixii annaga ilaanu idinmaanu gelinay annaga idinka shaqadu inaga dhaxaysa udub iyo idinkana wada hadalayaasha aad ka dhexeeyay idinku waxaa soo jeedaysaa annaga noo soo jeediyay. markaa sidaasaan anagu soo fadhiisanay waxaana soo jeedino sanu doorashada arkayno sanu arkayno in lagu kala baxsanayo komishanka u jeedinayna laakiin aan udubna u jeedinaynin cid kalena u jeedinaynin. run ahaantii markii wada hadalladu bilaabmeen kulmiye wuxuu ku biray doodii la isweydaarsanayay, laakiin wuxuu ahaa jawi wada hadalladu mid aad iyo aad u adkaa oo marmar faraha ka baxayay. haddana guud ahaan waxay daacad ka ahaayeen sidii xal loo gaari lahaa. waxaa ka mid ahaa wada hadal jiraan ka hadallaa ka mid ah hantida qaranka, gaadiid ha noqoto xil ha noqoto. xilka waa tiqraa marka hantida dowladda xil xeelku soo gelayaan, gaadiidku soo gelayso, lacagtii soo gelayso, idaacaddii soo gelayso, tvga soo gelayso. waxyaalaha ugu badan aan ku wada hadlayna waxay ahayd waa idaacadda iyo tvga halkaa yaalla ee laygu garaacaya ee la isticmaalaya ee 24 saacadood halkaa ka qowqowlihii anigu wax lagaga sheegaya ee aan wax kale lagu sheegaynin ee cilmiga lagu sheegaya cid walba markhaatigeeda wasiiradu waxay ay ku hadlayeen. tan kale inkasta oo horta dee eedayn iyo iska difaacid ay ahayd oo dee arrimuhu mar walba iska taagan yihiin. Somaliland oo kaliya ay tahay mar walba xisbiga xukuumadda ay gaar ahaan Afrika baadeen u soo noqon ay tahay. anagu xisbi ahaan runtii waynu u arkaynay sababtoo ah waxaan aynu ka hadlaynay waa doorashooyin iyo xeerarkana mudday oo leeyahay. maanta waxaan haynaa talada berri inaanu mucaarid noqonaa laga yaabaa. marka horta aragtidaydu may ahayn mid maalintaas ku kooban. aragtidaydu guud ahaan waxay ahayd in la helo doorasho xaq ah oo xalaal ah iyo xeer iyo nidaam code of conduct gundhigu noqda ilaa dee ubadkeena oo ay ku dhaqmaan in meesha laga tago. inkastoo nu arkaynay xisbiyada mucaaridku marka qaarkood ka badinayeen oo anaguna dee dabarka u soo celinaynay. komishanku wuxuu raadiyey sidii uu u heli lahaa kalsoonida axsaabta mucaaridka ah. taasuna waxay u baahan tahay in komishanku keeno wax damaanad ah inuu heshiisku fulayo. marar badan baa komishanka wax la weydiinayay maxaa ballanqaadoo damaanad aad isiinaysaa waxa aan la galay
inay dowladdu fulinayso shafka inaad garaacdaad ku khasbanta inaad tiraa tawakalkii ilaahayna waa ku darsanaysaa dabadeedna aad tiraa mayana ee waa khasab binding bay ku tahay madaxweyne ama ku-xigeen baa saxiixaya wuxuu saxiixay wuu ku khasbaya inuu onalgareeyo ixtiraamo haddaanu ixtiraaminna adcaf aliimaan adduunka weynaha iyo ummadeennaba waanu sheegayaa oo waxaa leeyahay wuxuu ku gabood falay heshiis uu ummad la galay axsaab la galay buu ku gabood falay intaasaana kaaga bakaynayn damaanadda komishanka ku jirtay ayay xisaabta mucaaridku aanay aaminsanayn inuu heshiiskaasi noqonayo mid hirgala haddana iyagoo sidaa aaminsan ayay wadahadallada si firfircoon uga soo qaybgelayeen runtii dee code of conductka siduu qoraa way fiicnayd hantida qaranka inaan xisbina ku ololayn laakiin xaqiiqada dhabti waxay ahayd inaan xukuumadda laga xakameyn karaynin maadaama iyadoo hantidii haysato iyadoo taa la ogiyay haddana dee kolba sidii arrinta loo dhiraandhirinayey waa loo dhiraandhiriyey waxaanan qabaa kolleyba dareen ah inaan waxyaaba qaarkood la xakamaynin way jirtay laakiin haddana waxaanu ka door bidnay inay sidaa ku socoto sida uga jawaabtay martiqaadkii komishanka iyo martigelinta akaademiga nabadda iyo horumarka oo ah halkii lagu soo tisleeyey wadahadalladii axsaabta waxaa ka soo baxay heshiiska anshaxa doorashada xaflad ballaadhan oo ay soo qabanqaabisay akaademigu ayaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane axmed yuusuf yaasiin guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo guddoomiyaha xisbiga ucid ku saxeexeen heshiiska anshaxa doorashada aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey waxaana loo arkay in axsaabtu diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashada isla xafladdaa waxay hogaamiyaasha labada urur ee saxaafadda somalilan ku saxeexeen anshaxa saxaafadda xilliga doorashada anshaxa saxaafadda waxaa iska kaashaday soo diyaarintiisa akaademiga b b c-da komishanka iyo ururada saxaafadda ee somalilan doorashada golaha wakiilada waxay imtixaantay awoodda axsaabta siyaasiga intee bay gaadhsiisan tahay awooddooda xisbi waxay ahayd axsaabtu inay murashaxiintooda iyagu xulaan si xisbinimadiisu u muuqato may dhicin markay meenaya axsaabtu waxay soo xidhayeen murashaxiintooda may soo xidhin xisbi murashaxiintiisa isagu xidhay ma jiro muddo dheer ayaa hargeysa oo dhan ay shirar ardaaye qabiilahay oo qabiil weliba uu soo xidhayay murashaxiisii ama labadiisii murashax ama saddexdiisii murashax sidaasayna murashaxiintu ku soo baxeen dabadeedna axsaabtun baa loo geynayo xisbiga reerku ninka uu yidhaahdo ninkaasaanu soo sharaxnay ee uu wato xisbigu wax hadala kama odhanay waxa kaloo axsaabta lagu eedeeyey inay soo nooleeyeen siyaasaddii beelaysnayd halkii ay ka hirgelin lahaayeen hanaanka axsaabta badan ma odhan karno doorkii ay lahaayeen xisbiyadu way qaateen waxaan odhan karnaa xisbiyadu waxay dib u soo nooleeyeen habkii qabaa'ilka aynu ka guuraynay run ahaantii axsaabtu waxay isku dayeen inay muujiyaan xisbinimadooda laakiin waxaa ka awood badatay qabyaaladda waxaan usoo qaadanayaa tusaale in ay beelaha somalilan ka mid yihiin ay noo keeneen macaasalaadiintooda macacuqaashooda ay nin iyagoo wata noo keeneen isla markaa ninkaasi aanu ahayn xisbiga de laga yaabo in taageerayaasha guud ahaan aanu ahayn dadkan xisbiga ku jira marka anagana waxaa noogu jiray halkaa nin kale oo xisbiga usoo halgamay oo muddo badan usoo halgamay oo xoog iyo xoolaba u horay marka markii aanu sidii samaynay bay beeshii xidhiidhna saartay waxay dhahdeen anagu ninkan doorataan mooyaane annagu idin codayn mayno marka waxaan anaguna dooranay in aanu ku qasabno in ninkii xisbiga ku jiray aanu siino sidii baanu ninkii xisbiga ku jirnay aanu siinay iyaguna sidii bay yeelanay codkii u siinay ninkii xisbiga ku jiray halkaasuu ku haray ilaa imikana halkiisiibuu isagu ka wadaa dadka somalilan ku nooli ma aha dad u bisil hanaankan dimuqraadiyadeed ma aha dad u bisil waxaan odhan karaa xisbiyadu hadda waxay ku taageen waa bilow fiican waayo afar qof oo dee xisbi ku jira bulshada horta haddii saddexda xisbi la isku daro wax yar bay ka noqonayaan intaa aba hawl qabanayso dee dadka taageeraya maan sheegay laakiin inta hawl qabanaysa aad bay u yar yihiin
waxaan odhan karaa xilligan bilow fiican bay ku jiraan qaabkii qabiila lagu soo doortayna runtii waxaan odhan karaa xilligan aynu taagannahay habkii ugu fiican ay ku soo dooran lahaayeen bay ahayd aniga aragtidayda awoodda uu qabiilku ku lahaa xulashada axsaabta musharaxiintooda waxay aad iyo aad u yaraysay fursadaha ay axsaabtu ku soo dari lahaayeen musharaxiintooda haweenka iyo beelaha gabooyaha labada kooxood oo qabiilku midna ku reebay dhedignaanshaha midna ku reebo qabiilka uu ka soo jeedo waxa mathalaya qabiilkuna waxa weeye qofka dumar hidee way tahay qabiil laakiin haddana marnaba waxa weeye qabiilnimadeeda waxa saaran calaamatu su'aal maalmii ugu dambeeyay markaa dhadeen annagina waxaan doonaynaa inaan xubinnimo helo waxay yiraahdeen oo yaa ka tirsantiin maxaan idinku xisaabina ma qabiilkiina mise qabiilka anninka markaa kollenba mushkiladaas mid mar walba taagnayd bay anagu saddexdaa midna horta kategori uma aanaan gelin adduun badan dee faraa kuma hayno in reerka iyagu inkastuu meel walba yaalla haddana dee meeluu concentrated ku yahay oo la odhan karo meeshaasu ama ka labaad ka gelayaana ma jirto waa waxaa fariiqsanaa midba meel ku daadsan yihin taas iyo dee markii horeba iyadoon dee laguma danayninba intaas israacis qabiilka gabooyaha waxaa intaa u sii raacay labadoodii musharax ee ay soo sharaxeen axsaabtu waxba kama ay talogelin labada kalena dee iyana waxba may magacaabin oo dariiqay u marayeen reeraha kale mabay marinayaan reeraha kale waxaa la siiyey muddo waa kuwii maqsinada furtay magaalada ee reer waliba gudihiisa iska soo xulanayay ee dabadna iyagoo soo bislaaday nin la soo baxay xisbigaa la imanayay annaga labada nin dee iyagaa soo magacaabay xisbiga waxay gaadhay August 15 maalin ka hor xilligii ololaha doorashada uu bilaabmi lahaa waxay yimid dibudhac diyaarinta agabka doorashada ayaanay muddada harsanayd ku fillayn sidaa awgeed xilligii doorashada waxaa dib loo dhigay 14 maalmood 29 Sebtembar ayaa noqotay maalinta cusub ee doorashada ololihii doorashada ayaa bilaabmay August 26 ololaha doorashadu xiisaad iyo xamaasaad uu leeyahay laakiinse wuxuu dhacay si nabdoon banaanbaxyadu waxay soo jiidanayeen dad fara badan waxa lagu muujinayay taageerada xisbi waliba haysto arrinku wuxuu u badan yahay heeso iyo halku-dhigyo oo ma jiraan barnaamijyo siyaasadeed ee lagu xallilayo dhibaatooyinka waddanka ka jira si habaysan oo organize ma habaysan oo dadkii iyagoo iska aamusan meenta la isku keeno deetana si wanaagsan loogu khudbaynayo ma yahay khudbaduna qaar xamaasiyaho aan magaranaysa wax nuxur loo badan oo caynkaas aan sheegaynin xisbigooda iyo ammaantiisa iyo heeso iyo mashxarada iyo ololooda ayay wada hayeen marka dhinaca ka eegto wuu nuxur laa odoon kartaa kambeynku ama ololaha wuu nuxur laa ama nuxur ma lahayn ta kaleeto waxa weeye axsaabtu may la imanin issues ay ku kambeyn garaynayeen oo dadku soo qadimayeen hargeysa waa wada mushkilada biyaha mushkilada dhulka mushkilada nabadgelyada wax badan baa magaalada ka jira problems maan maqal xisbi kaliya oo siyaasad cad oo uu arrimaha ka leeyahay sidii looga bartay ololayaasha doorashada waxaa jirtay cabashooyin la kala sheeganayay inta badanna waxay ku salaysnaayeen arrin kaliya mid bay isugu imanayaan kulligood waxa weeye loo baahan yahay la caddeeyo loo baahan yahay culture-kiina gasho dimuqraadiyadda waxa weeye xisbiga xaakimkii iyo dowladdu sidee bay marka doorashadu jirto waajibaadka iyo maxaa iyo rightska
maalintii doorashada ayaa waagii u bariyey komishanka qaranku wuxuu ku ducaysanayay maalin aan roobanayn ducadoodina ilaahay wuu aqbalay in ka badan 600 oo kun oo dadweynaha Soomaaliland ah ayaa u dareeray goobaha codbixinta sidii ay u soo doortaan gole wakiilo cusub maanta dareenkaaga ugu weyn dareenkayga ugu weyn waa farxad waxaan aad u faraxsanahay nidaamka waxaan ku faraxsanahay nabadgelyada dalkayga ka jirta waxaan aad u faraxsanahay horumarka ummadaydu gaadhay waxa aan aad u faraxsanahay in dalkayga waxaa jira dhibaatooyin waxaa jira dad isku dayay inay mar wax ka badan codeeyaan codbixiyaal aan weli gaadhin da'dii codaynta iyo dad gaadiid lagu gurayay markii maalintii codbixintu ku dhammaatay waddankoo dhan si nabadgelyo ah waxay noqotay guul weyn oo u soo hoyatay Soomaaliland goobjoogayaasha caalamiga ahaa iyo kuwii guduhuba waxay gareen inay codbixintu si xor ah caddaan ah oo aan mugdi lahayn u dhacday dibadhac ayaa ku yimi ku dhawaaqidii natiijada doorashada meelaha qaarkood howlwadeenada goobaha codbixintu waxay soo jeedeen habeenkii oo dhan si ay u tiriyaan codadka dhib ayaa lagala kulmay goobaha qaarkood isugeynta tirada codadka taasoo sababtay in laga cawdo natiijada sanaadiiqda qaarkood waxay kaliftay in sanaadiiqda dib loo furo si loo hubiyo tirada codadka ugu dambeyntii waxaa natiijada doorashada oo dhan komishanku ku dhawaaqay bishii Oktoobar 15 una diray maxkamadda sare sidii ay u ansixin lahayd dhammaan axsaabta iyo musharaxiintooduba way aqbaleen natiijadii doorashada xisbiga talada dalka haya ee udub ayaa tirada kuraasida ugu badan helay 330 kursi waxaa ku xigay xisbiga kulmiye oo helay 8 kursi iyo cid oo helay 21 kursi taasoo isugeynta tirada kuraasida axsaabta mucaaradku heleen noqotay 49 kursi baarlamaankii hanaan beeleedka ahaa wuxuu ahaa mid dhammaan beelaha Soomaaliland ay ka wada muuqdeen inkastaba tiradoodu hal eekaatee hirgelinta doorashooyinka ku salaysan hal qof hal cod waxay saameyn weyn ku yeelatay qaybsiga beelaha kuraasida golaha wakiilada cusub waxaad moodaa kan in dadkii ugu tira badnaa ama reerihii ugu tira badnaa ay soo baxay oo ka faa'iideysteen oo dadkii markii hore ku jiray golayaasha laga tira badnaa ay ka maqnaadeen horta harti ayaa iyagu aad moodaa inay tiradii ay ku lahaayeen golaha baarlamaanka ay hoos u dhacday
oo taasna laga yaabo inay dhibaato keentay laanno iyagu way qaybsanayeen oo qolo waxa qaybsanay qolo ka qayb gasho iyagu doonayeen inay ku yeeshaan oo ay ku lahaayeen cid matasha iyo qolo diidaneed. dad badani waxay aaminsan yihiin hoos u dhaca ku yimi kuraasida hartiga iyo ciisaha inay sii fogeynayso. qaybaha kale ee ku hunkoobay doorashada golaha wakiilada waxaa ka mid ah haweenka iyo gabooyaha. inkastoo haweenku ahaayeen dadka ugu badan ee codkooda dhiibanayay, haddana laba haween ayaa doorashadii golaha wakiilada ku soo baxay. mid ayaa ku soo baxday tartan, midna kuraasidii aan tartanka ahayn ayay ku soo baxday. qofka dumarkii xaawalinimadan dumarku waxay u haystaan marka ay dhibaato qabsato way ku imanayaan haddii marka qof dumar ahoo maalin walba xaafadaha jaarka miyaanaydan xaawal ahayn qof dumara halkan ku dhibaataysan. marka dumarka badidooda boqolkiiba 9 iyo wax ka badan xaawalinimadooda uguma jirto. qofkan wakiil bay kaa noqon kartaa danahaaga meel kaaga hadli kartaa golaha wakiilada hadday tagto ama ay maxay tahay meel ka noqoto xubin. wadciga ka jira waddanka way ku adag tahay haweenka inay tartan doorasho ku soo baxaan. markaa bahda haweenku waxay soo jeedinayaan in haweenka kuraas loo qoondeeyo. waxaan waxa weeye qabiilku waxa weeye ma sahlana, xoog buu xididda u leeyahay. waxa weeye waa hab isku dhan oo qofkii weli ilaa alaanka dawladnimo ka soo jirta weli haddana waxa qabiilka uga damaanad badan qofka dawladnimada. marka way sii jiraysaa. mar hadday sii jiraysana waxa lagama maarmaan noqonaysa kullenba inta waxa laga baxayo dadka in loo qoondeeyo haweenka. sidoo kale beelaha gabooyuhu waxay ku degan yihiin magaalada Hargeysa tiro soo saari lahayd mid iyo laba musharax, laakiin labadii musharax ee ka soo jeeday beelahaasi si xun bay u dhaceen. doorashadii laftigeeda sidii la rabay inay beelahan ugu codeeyaan musharaxiintoodan إلا هون ودوقنا حسب مشرع لماذا نوع يقول عندنا بيلبال وعلى يسقط دورنا يجيب رنتي عن وبسلان أو تا يكون عوين حتى عد كيف كلاب خيلان أو أنا كلاب خيلان جودان تيابا أنا أقول لفتي يقول أنا سكوا سارين beelaha gabooyaha waxaa jira dad ka soo horjeeda weli in kuraas loo qoondeeyo. waxaan ka carray waa qoondeynta marka horeba xerada wax ka galaan leh xerada gooni lagu ooday ma dooniyo wax gooni lagu soo oo dhamma ka xanaqa xitaa saxan ha noqotay saxan meel la yidhi gulay saxan ka adaale waan ku ridaa ka kale dhankayga waayo hayb soo baan ka xanaaqi tanna waxa weeyaan kursi soo lay soo ayo waariyana 100 sano dambe helin hadan doon horta tartanka aan ka qayb galo waa soo caafimaad isaga ku aqleysan doona dhexdiisa ma garatay aksar tristan helo hadii si xero yar la sameeyo furkiyo gooniya halkaas waa qafl. laakiin in badani waxay doonayaan in kuraasi loo qoondeeyo ilaa inta ay bulshadoodu siyaasiyan u bislaanayaan. waxaan taaganahay in xeerka loogu daro ayaan taaganahay xubno ayman oo ama kootana loo sameeyo. doorashadii golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay ahayd tallaabo muhiim ah oo loogu guurayo hanaanka dimuqraadiga ah, laakiin samay ahayn tii lagu gabagabeynayay geedi socodka dimuqraadiyadda. Soomaaliland waxa ka hor iman doona caqabado fara badan sidii ay u hirgelin lahayd dimuqraadiyad shaqaysa oo sii jirta. waxaana ka mid ah caqabadaha sidii la isugu dheeli tiri lahaa awoodaha saddexda gole qaran oo kala ah fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka, dib-u-habaynta shuruucda iyo habraaca doorashooyinka, loona joogtayn lahaa doorashooyinka iyo sidii loo xoojin lahaa axsaabta siyaasiga ah iyo ururada bulshada rayidka ah oo looga xuub siiban lahaa siyaasadda beelaysan.